maanta waxaynu rabnaa guddigii doorashada guddoonka aqalka sare ee aynu dooranay oo hadda warbixintoodii aan dhegaysanay. waxaan rabnaa hadda maanta inaynu helno guddigii dooran lahaa madaxweynaha dalka ee aynu u fadhino. waxaan isleeyahay de xeerku annaguna siinayay inaanu magacowno guddigaas, laakiin waxaan isnidhi aqalka 39 xubnood ayaa kuwa cusub ah. isma naqaano, si fiican isma wada naqaano. marka waxaan isnidhi habraacii waagii aynu raacnay ee aan guddigan ku samaynay oo kale uun inaan raacno, oo ay tahay in dowladaha xubinka takaa dowladda federaalkii inay soo doortaan oo ay keenaan xubnaha guddiga inooga koomayo. kolley guddigu 6 xubnood buu noqonaya, laakiin waxaan rabnaa xubno aqoon fiican leh, garan kara. maanta waxaynu u baahannahay madaxweyne hogaamiye dhab ah oo dalka dhibaatada uu ku jira ka bixin lahaa ayaynu u baahannahay. waxaan xusuusnahay oon maanta hal erey halkan ka odhanaya 2000 markii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu qabtay shirkii Soomaaliya dowlad dib u dhisid loogu samayn lahaa. waaga innaga Soomaalidu horta fanaaniinteenna hadalkooda ma danayno, laakiin maanta waxaan isticmaalayaa hees abwaan Soomaaliyeed oo la yidhaaho Cabdibuux Yuusuf uu ka jeediyey shirkaas, oo ilaa maantana xaaladii aynu kolkaa ku jirnay ay sidii u taagan tahay. heestiisa waxaa la odhan jiray darajiya xilyaa mudan. wuxuu kolkaas sifeynayey qofka ay Soomaaliya u baahanta. yaa colaada damin kara, dabka yaa baktiin kara, yaa dooni kara nabad. dalka dibudhiskiisiyo dadka yaa wax tari kara. laba darsin oo keliyaan ka soo qaadanaya. kaasi waa mid oo kolkaa qofka aynu u baahannahay waa qof dalkan nabad ka dhiga, dhibaatada jirta joojiya, dalka dhisa, dadkana wax tara. inta uu inoogu sheegaya abwaanku heesta intaas weeye. wuxuu yidhi qabiilku dacar weeye, qabiilku yaa diiday odhan kara, dadka yaa hor iman kara, hadal deeqa odhan kara, rag iyo dumar kulligood yacni warkiisa siin kara oo xuma ka daahira. waxaynu u baahannahay yacni heestu waa dheer tahay, laakiin labadaa erey baan labadaa weedhood oo keliya ayaan ka qaadanayaa. way badan tahay. waxa weeye waxaynu u baahannahay marka taa qofka uu abwaanku sifeeyey ee heesta ku sifeeyey ayaynu u baahannahay. innaga anigu waxaan aaminsanahay oonan marna ka tanaasulaynin qabiil dowla kuma noqonayno, ma ku noqon karno. sababta waxa weeye qabiil waa dhaqane, siyaasad ma aha. dowlana ehel bay rabtaa, aqoon-yahan bay rabtaa, aqoon ule bay rabtaa. waxaan kolkaa leeyahay maanta guddiga aynu samaynaynaa waa inuu noqdo waa guddigii doorashada u samaynayey madaxweynaha aynu rabno, hoggaanka aynu rabno. hoggaanka micnaheeda af Soomaaliga horta waa xadhig, laakiin hoggaankaas waxaa lagu xiriirin jiray awrta. awrka dambe awrka hore socodkiisu leeyahay baa yaa la yidhi. waxaynu u baahannahay hoggaamiye aynu higsanno oo la wada raaco oo
yacni dhibaatada soomaaliya ka jirta inaga saara waa guddiga aynu samaynaynaa kaas weeye inaga keliya maaha kolkaa guddigu noqon maayo golaha shacabkuna guddi bay samaynayaan 10 xubnood baa xaggaa ka imanaysa xaggeennana 6 xubnood 6deenna xubnood waa inay noqdaan 6 xubnood oo aqoon leh garanaysa mustaqbalka soomaaliya sidii lagu hogaamin lahaa ee loogu soo saari lahaa madaxweyne dhibta ka saara guddiga intaynu u dooranaynaa intaa wey waxaan kolkaa leeyahay dowlad goboleed kasta ha isu tagto ha noo keento qofka ay leeyihiin qofkaasaana matalaya iyadoonu annagu tanaasul halkaa ka samaynay annagay ahayd inaanu guddiga magacowno laakiin maadaama kii hore guddigii hore sida aynu u qaadanay kanna waxaan nidhi tiim baan raacaynaa oo aynu kolkaa sugaynaa inay noo keenaan aad iyo aad baad umahadsantihiin